السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Maxamed Faqri iyo wax la'aan kadib waxaan ahay mulkiilaha shirkadda ugu weyn ee cuntada 20 sano ka hor marka aan ku jiray da'da 20-meeyada maalin walba shaqaraadis ayaan ahaa waayo qoys sabool ah ayaan ka dhashay waxbarashana awoodeena ma ahayn shaqo inaan helana way igu adkayd laakiin maalin maalmaha ka mid ah waxaan arkay mid ka mid ah shirkadaha oo soo bandhigay shaqadaasna ay tahay masquul dhaqid shirkadii ayaan aaday waxaan la kulmay maamulaha shirkadda waxaan ku dhahay marxaba mudane magacaygu waa Maxamed waxaan u imaaday shaqada aad soo bandhigteen wuxuu igu dhahay haye emailkaaga inta ku qor si aan kuugu soo dirno faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan shaqada laakiin email ma lihi waayo kombiyuutar ba ma ii yaalo guriga wuxuu igu dhahay email ma lihi gurigana kombiyuutar ma ku yaala miya may mudane wuxuu igu dhahay haddii ay sidaa tahay adiga caalamka dhan waad ka maqan tahay waan ka xumahay shaqadan email la'aan ma ku siin karo sidee ayay ku dhici kartaa email la'aan ma shaqayn kari miya ma shaqayn kartid waan ka xumahay shirkadeena xeerkeeda ayaa sidaas ah shirkadda ayaana ka soo baxay weliba anoo niyad jabsan maxay tahay xeerkan oo dadka emailka leh un la shaqaysiinayo waa arrin aad u xun inta aan guriga u socday ayaan arkay nin meesha khudaar ku iibinayo lacag aad u yar ayaa jeebkayga ku jirtay ninkii ayaan ku dhahay ma iga iibin kartaan 2 kiilo oo khudaar ah haa ayuu iigu dhahay hadda ayaan kuu diyaarinayaa lacagta ugu dambaysay ayaan siiyey khudaartana waan ka soo qaatay waan soo baxay inta aan wadada socday ayaa fikrad igu soo dhacday waxayna ahayd inaan khudaarta ka iibiyo dadka wadada marayo sidii ayaan sameeyey 2 kiilo khudaar waan iibiyey waxaana ka helay faa'iido guriga waxaan aaday anoo aad u faraxsan hooyo ayaa iigu dhahday wiilkaygiyow maxaad dhaqsi u soo laabatay shaqadii aad u baxday ma soo heshay maya hooyo shaqada ma soo helin waayo maamulaha wuxuu igu dhahay waa inaad email lahaataa daadan lahayn shaqo ma ku siin karo hadda maxaan samaynaynaa lacagta aan haysana way dhammaan rabtaa hooyo waxbaha ka cabsan ayaan ku dhahay shaqo kale ayaan helay waxaana waa inaan ka faa'iideyno maxay tahay shaqadaas hooyo khudaarta ayaan si jumlo ah u soo qaadanayaa waana iibinayaa maanta sidaas ayaan sameeyey faa'iidada aan maanta soo helay khudaar jumlo ah ayaan ku soo iibinayaa si aan berito u sii iibiyo waa fikrad aad u fiican ilaahiyaa ka arsaaqo hooyo waan baxay lacagtii oo dhan khudaar ayaan ku soo iibiyey maalinta ku xigtayna waan sii iibiyey muddo ayaan sidaas ahaa ilaahay ayaa arsaaq fiican iga siiyey ilaa aan miiska samaystay ilaahay ayaa iga sii arsaaqay waxaan iibsaday gaari aad u weyn waxaana bilaabay meel walba inaan khudaarta geeyo weliba qiimo aad u sareeya ilaahay fadligiisa iyo ducada hooyaday waxaan awooday inaan shirkad yar oo cuntada ah furto maalinba maalinta ka dambaysay shirkadda waa ay sii weynaanaysay waxaan go'aansaday shirkadayda inaan ku biiriyo shirkadaha caymiska meeshii ayaan tagay waxaan ku dhahay wiilkaygiyow shirkad aad u weyn ee cuntada ayaan leeyahay waxaana rabaa inaan ku biiriyo shirkadaha caymiska arrintaas ma igu saacidi kartaa haa mudane waan kugu saacidi karaa ayuu igu dhahay wuxuu igu dhahay mudane emailkaaga halkan ku qor inta aan ku qoslay ayaan ku dhahay email ma lihi 20 sano ka hor email haddaan lahaan lahaa waxaan ka shaqayn lahaa musqulaha inta uu ifiiriyey ayuu igu dhahay waa la yaab email la'aan sidee shirkadan weyn oo dhan aad ku lahaatay sheekadan cibradeeda waxay tahay markastoo ah waxaad jeceshahay oo alle kuu diido wuxuu kugu bedeli doonaa waxaas wax ka sii khayr badan intaasay sheekadeena ku eg tahay haddii aad janalka cusub tahay waxaan kaa codsanaynaa like iyo share iyo subscribe inaad noo dhahdo